الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. إخوة الكرام، وعن أحمدنا إلهي خالق أها ونقول كل مية فرق عن خالق مكان كان دين إسلام كان كل فائدة سنين وحنا دنا كحمدنا إلهي نقدر أمة إسلام وأبتر ستا أهل السنة والجماعة نجنا بدباديي أهل البدع والزيغ. سيداد مغلي سامبا موضوع نعاوة وكساب سيهي تاريخ الوهابية ومراحلها المختلف. وحال هذا أبترس قلدني أفر مضافه خاصك إلهي حمد جيسة هدي أي سامبا وحوين أهين حيا لي وابا وحل أقي هاي dee waqtigiisiiba waa loo jeedaa waqti iska dhow weeye. marka shay diinta sal weyn kule inuusan ahayn oo yacni xidhiidha leh baad ka garanaysaa uu yahay wax la dhoobdhoobay insha allahu sidaan arki doono. sideedaba shaygu mar hadduu taariikh yahay wuxuu abtirsadaa waxa weeye waa inuu abtiris leeyahay oo uu dhab yahay oo raad leeyahay. innaga nafteenuna waxyaabaha aan soo qaadanayno insha allahu tacaala oon halkan kaga hadli doono waxaanu ka xigan doonaa kutub oo u badan weliba kutubtii ay qoreen ninka ay ku abtirsadaan iyo raggiisii ay qoreen. taa baanu insha allahu tacaala inta badan ka qaadan doonaa iyo waxa raggii la joogay ayaga ka qoreen oo ku zamanka iyo waqtiga ahaa. horta waxaan sidoodaba arrintaani waa fitno weeye. fitnada sideedaba dadka mu'miniinta mar walba waa la imtixaanaya. xabiibkeenna waqtigiisii salawaatullaahi wasalaamu calayhi dad baa joogay diinta islaamka dhib ku ah. dadkaasi ma dhammaanin markii nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi adduunka ka wareegay oo uu u wareegay ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshii uu raxmaddiisa ugu talagalay inuu geeyo oo macnaha jannadii ilaahay uu u wareegay. munaafiqiin iyo bale ayaa noolayd. dadka marka yacni mu'miniinta ahi mar walba waa dad la imtixaanayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waatuu leeyahay: maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh xataa yamiiza alkhabiisa min altayib. ilaahay ma ahan mid mu'miniinta uga tegaya waxaad iskaga sugan tihiin inaad mar walba iska nicmaysataan aan diintiina la qashqashaadin oon caqiidihiina laydinku dhibin. laydinkaga tegi maayo ilaa inta laydin imtixaano la kala sooco midka xun iyo midka fiican oo mid walbaba jazaha uu leeyahay la mariyo. ilaahay wuxuu yidhi ka cabsada fitno aan ku dhacaynin oon asiibaynin kuwa dulmiga falay keli ah ee idinkala gaaraysa. fitno dhacda waxa ugu xun oo ugu dhib badan midda caqiidaha ku dhacda sida aan tegi doonay ummadeennii Soomaaliyeed ee ahlu sunna wal jamaaca ahayd ee ahlu dariiqa ahayd loo khalqalinayo caqiidaheeda waan arki doonaa insha allahu tacaala. tan kale nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi markuu ka hadlayay arrintaa iyada wuxuu sheegay fitno kasta oo timaada in aan la waayaynin dad diinta islaamka ku toosan oo dariiqii nebi moxamed haysta salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo ka tarjumaya xabiibku wixii uu nooga tegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi. wuxuu yidhi: laa tazaalu daa'ifatun min ummatii cala alxaqi daahiriina laa yaduruhum man khaalafahum xataa ya'tiya amru llah. xadiis muslimku warinayay rasuulku sidaasuu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayh.
daa'ifo iyo jamaaco ka zuuli maysuu yidhi in ay xaqa ku taagan yihiin oy xaqa ku soconayaan asagoo uusan waxba ka dhibaynin ciddii khilaafta intii amarka ilaahay uga yimaado macnaa maxaa looga jeedaa intay ilaahay kala kulmaan ayagoo iibaankii leh wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin bur ilaahay caabud baa la yidhi intii mawdku kaaga yimaadood ka dhimato baa nabiga lagu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh waa si caam ah weeyaan waxaan marka qasaba inaanu kala saaro waxaad soo barateen muxaadaradan midii ka horreysay sheekh sahal mucallim uu noo soo jeediyey ilaahay ka raadi noqde annaga abtiriskeenna ayaad ku barateen midaanna waxaad ku baranaysaan dadka dariiqii saxda aha ka leexday wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuh guri ilaahay dariiqaygii wakaase raaca walaa tattabicu subul wadda beenaadka iska dhaaf qoladii wadda goodirka qaaday ayagana dee inaanu taariikhdooda wax iskaga sheegnahay waa waajib baan u malaynahay waxaa la yidhi rag dareen moog iyo riyo dad moogba waa loo baqaa moogta haddaan nagu iska aamusno waxyaabaha suuqan yaallaan iska raacaynaa kutiri kuteenta ah marka sidaa daraaddeed baan insha allahu tacaala baanu wax iska tusi doonaa arrimaha iyaga ah nimankaa iyaga ah oo hadda aan soo sheegnay oo la yidhaha wahaabiyada mu'asiskoodii ninkii asaasay waxaa la odhan jiray moxamed bin cabdilwahaab bin sulaymaan wuxuu dhashay 1115 buu dhashay wuxuu ku dhashay magaalo la yidhaha cuyayna oo qaryo yar ah ayuu ku dhashay aabihiis baa sheekh u ahaa oo u bilaabay kutubta islaamka iyo diinta wuxuu ka bilaabay nin caalima ayuu ahaa sheekh cabdilwahaab bin sulaymaan baa la odhan jiray walaalkiis baa joogay asaguna oo la odhan jiray sulaymaan bin cabdilwahaab oo weliba asaga fitnadiisa kitaab ka qoray waxay carabtu ku maamaan af soomaali aan ku bedele ruuxa saaxibulbeytkaahi waxa ku jira isagaa kaa og bay yidhaahdaan waad garan kartaan oo dee walaalka isaga unbaa kula zamantamo kugu taariikh aabbihii oo iibaan le ninkii caasiyey walaalkii oo iibaan le oo sheekhana caasiyey aabbihiis oo sheekhiisiina caasiyey waxaan u malaynayaa hadde annagu haddeer in kuwa sheekha caasirhaya la helo inaan baciidsanahay waa fog tahay maxaa yeelay waxaa la yidhi ninkii tiin abuurta timir ma goosto hadduuba marka hore tiin ahaa in khayr ka soo baxo raadkiisii marka ha u malaynin ninkaas isaga ah aabihiis ayuu wax ka akhristay maxamed cabdilwahaab dabadeedna wuxuu aaday xaramaynka markii uu tegey rag mashaa'ikha ayuu kula kulmay waxaa ka mid ah nin la odhan jiray sheekh moxamed bin xayaat asandi sheekh moxamed bin xayaat asandi nin la yidhaahdo ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa sheekh cabdullaahi bin ibraahim bin sayf labadaas sheekh ayuu xaramaynka wax uga akhristay waxaa la yidhi ratiga dambe ratiga hore saanqaadkiisuu leeyahay waxaa ka imaan doona bal hadda fiiri hadda waa mashaa'ikhdii culummadii ahludiinka ahayd wey wuxuu hadda ninkaasi qasaya hadhowna meesha ku dambeeyaan tegi doonaa insha allah halkaas ayuu joogay markii dambe uu ka soo safray xaggaas iyo ciraaq buu u safray wuxuu tegey magaalada la yidhaahdo basra oo ahayd manbaculcilmi waktigaa isaga ah raggii culummada ahaa oo waaweynaa ay joogeen raggii culummada ahaa markii uu u tegey nin la yidhahdo sheekh moxamed almajmuuci ayuu kula kulmay meesha wuxuu ka akhristay kutub ay ka mid yihiin kutubaha naxwaha iyo kutubo ay ku jiraan buu ka akhristay halkaa markuu joogo ayuu wuxuu muujiyey culammada islaamka oo dhan iyo mabaadi'da diinta islaamka wax khilaafsan shar buu bilaabay waa la yaabay culummadii waxa la wargo-e maxaa kugu dhacay oo waa lala hadlay wuu soo jeestay oo arrintiisiibuu ku madax adeygay khilaafsanayd shareecada islaamka markii dambe wuxuu gaaray in la bixiyo oo magaalada basre oo dhan xoog looga saaro la yidhaha naga bax halkaasuu cisyaankan sheegayay ka bilaabay hadde soo kuma aanan odhan kuwa hadda jooga maxay sameeyaan culummaday diinta ka dhegaystaan xoogaa markii laqbadu u baxdana waxay yidhahdaan shiiku waa khuraafi halkaasay ka bilaabaan
mid baa aniga igu yiri macallinkayga jaahil buu ahaa dib macallinkaygu jaahil oo hadaba kaliya taabaan ku iri kee macallin jaahil lagu arko oo macallinkii marka halkaasuu ka bilaabay mafsadadii oo markaasuu ka qaxay oo magaalo la yiraahdo Zubayr ayuu markaa u qaxay oo aaday magaaladii buu haddana wuxuu ka bilaabay muran iyo qaylo kale iyo dood uu culimadii la doodayo la murmayo culimadii baa ku kacday oo waliba aadayso yiraahdeen ninka ayaa nagu soo daayay hiis ahayn cidda uu nisba sheeganaya oo macnaha wax soo bartay lahad lama aqoon qof aan nisba lahayn ninkan waxay arkeen markii inuu akhlaaqdii ardanimada ka baxsan yahay halka ayuu markaa ka qaxay haddana mar labaad waxa la yiri wadada dhexe intuu sii socday saadkii baa ka go'ay iyo biyihii iyo raashinkii wixii uu watay markaasuu barbar iskaga dhacay baahi iyo aan buu la rafaaday isagoo meeshii yaala ayaa waxa u tagay oo meeshii dariiqii ka helay nin dameer wata oo magaciisa la oran jiray Xamdaan baa dameerkii ku xambaaro meel la yiraahdo Xureymala ayuu geeyay waa bala aruuris nasiibkiisa ahayd inuu iska dhintay ahayd Xureymalu tagay halka markuu tagay aabihiis oo qariyadii asagu uu ku dhashay ka soo guuro meesha jooga ayuu kula kulmay aabihii baa markaas si xun u radiyay oo waliba la dagaalamay si fiican buu u go'doomiyay odaguna de mar horeba ilaahay ishaara ku tusawixiisa wuxuu yiri habeen kii uu calool galay ninkan waxaan ku ru'yooday buu yiri ayadoo dhimbil daba xibintayda taranka ay ka baxday buu oo saa markii u booda adduunka dhamaan dab isqabsaday buu dhulkii islaamku dagay oo dhan dab ku firdhaday ilaahay xigmadii sidii baa ilaahay ka dhigay kitaab dhan baa qoraya oo la wada yaqaano rag badankiisu garanaya qisadaas markii uu halkaa yimid oo aabihii uu si fiican u radiyay oo dagaal badan aabihii uu la galay ilaahay xigmadiisa aabihii daajashi ilaahay baa u timid markii aabihii dhintay ayuu wuxuu isku dayay marka fikrigiisa inuu qoro ilaa fikrigu marka cid raacsaneed ma lahayn wax iska dhicinayo yani iska dhicinaya mooye wuxuu qoray kitaab yar risaalo yar oo ugu magac daray kitaabu tawxiid kitaabkan la yiraahdo Fathul Majidka dadka culimada ahlullaahidana ay u bixiyeen Fathul Majid matnigiisa weey kitaabkaas uu qoray taariikhdu waxay ahayd markaas 1153 bay ahayd waxa qoraya kitaab uu qoray Miller ibn al-Bishr oo la yiraahdo Cinwaanul Majdi juzkiisa koobaad safxada 8 baa qoraysa arinta ayada Cinwaanul Majdi baa la yiraahdaa fi taariikh an-Najd markaasuu ku soo qoraya markaas lagu kacay haddana sidoo kale uu sii qacay haddana wuxuu u laabtay qariyadii uu ku dhashay oo oran jiray Uyayna wuxuu la kulmay ninkii madaxda ka ahaa meeshaas qariyada asagu uu ku dhashay oo la oran jiray Uthman bin Ma'mar ayuu la kulmay waxay ahayd taariikhdu markay ahayd 1154 hal sano ka bacdi markii uu qoray buugaas yarka ninkii buu de markaas la hadlo wuxuu yiri niyo wax raba inaad maartay maangaliye isiiso oo aad soo dhaweyso oo de intaas oo dhul baan ka soo qaxay waxay qabo yiri ninkii oo qaxwati baan ku jiraay ninkii baa markaas soo dhaweeyo wuxuu yiri balalka iska joogo de hadaad diin sheegayso dadku waa khaldan ma moogta de qofku waa uu culumaan haduu yiraahdo marka hore waxa laga yaabaa inuu dad helo soo dhaweeyo ka bacdi hadii la ogaado waa la iska dhaciyay markaasuu wuxuu hadan culumaha u maleeyo wuxuu yiri bal iska joog buuriyo fikrigaaga iyo iska wado oo iska joog buulay waxa laga xukumayay qariyadan Uyayna qariyo la yiraahdo Ahsa gobol magaalo la yiraahdo Ahsa oo magaalo weyn ah ayaa laga xukumayay ninkii madaxda ka ahaa oo Ahsa joogay Amir Sultan baa la oran jiray ayaa wuxuu maqlay in nin noocaasi joogo Uyayna magaalada la yiraahdo oo aad u dhib badan oo islaamkii dhibay oo arrinta dhameedba gadinaya markaas wuxuu yiri warqad inta u qoray ninkii amiirka meesha ka ahaa oo Uthman ahayo ninka soo dhaweeyay ninka aad ku ag joogo meesha aad ku hayso waa inaad ama xirtaa buu yiri ama disha ama musaafirisaa oo aad ka saartaa qariyada si uu dadka iibaanka uga fasaadin
ninkii markaa wuxuu ku talagalay inuu iska masaafiriyo meeshii ka saaro wuxuu ku yiri waan bixinayaa waan masaafirinayaa wuxuu yiri ciidan daba dhig ee ku ogow inuu ka baxo saaxada dhan adigu aad xukumayso halkaas uu haddana ka caydiyay markaas ciidanna waa daba dhigay waardiyeeye micnaha waa baxay cararkiibu wuxuu ku tagay magaalo la yiraahdo dirciya oo mandiqa sharqiya kamida mandiqa sharqiya qorax ka soo baxa gobolka u xiga weeye dhulka Sacuudiga hada loo yaqaan dhulkaas sidiisaba musaylabatul kadaab ka soo baxay oo nabinimo sheegtay waa la wada yaqaana meel balaad ku harto ka soo baxdo aha nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi maalin duceeyay markaas wuxuu yiri allahumma barik lana fi shamina bir allahumma barik lana fi yamanina markaas ay yiraahdeen rasuul asxaabtii la joogtay wa fi najdina bay yiraahdeen mar labaad ku celiyo wuxuu yiri allahumma barik lana fi shamina allahumma barik lana fi yamanina markaas ay ku celiyeen waxay yiraahdeen wa fi najdina ya rasuul allah rasuulka ilaahay uu najdina nabigu marka muxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi هناك زلازل والفتن وبها يضلع قرن الشيطان بير النبي حديث البخاري iyo Tirmidhi baa warinahay wuxuu yiri ilaahayow sham iyo yaman bal noo barakay biyir markaas ay yiraahdeen rasuulka ilaahay u najdina nabigu wadana ducadii uu ku celiyay mar labaad markaas yiraahdeen najdina markaas wuxuu yiri waxa ka soo baxaya ibliis geeskiisa ka soo baxay حديث كلا وها مركي جيس لقى جويا من بدك صار دلنا كلا مركي جيس شيطان بقى ماشى كسر بيع جري ولي جيس مسلمة الكذاب أيضا كسر بحي دقاننا أيضا كسر بحي يسوونه شرير كان وحاشري حديث كلا والنبي يقول لي صلوات الله وسلامه عليه قال لماذا ماذا حادو يري حديث كان معنيه سي لقب الله أبو يري هالكاس ماشى يالك أنت كده حيسوي وحط الماء النبي يقول جهادي هذا عن شيء جيني ayadaasuna ka soo baxaa buu yiri geeska shaydaanka mashriqo ka soo baxaa buu nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi qariyada marka dirciya waxay ku taalaa meesha nabigu sheegay salawaatullaahi wa salaamu alayhi de waxa nabi maxamed sheegay ciidan boo hadda laga warsanayo hadda ma jirto waa wax la iska wada garanayo la yaqaano qariyadii buu tagay qariyadii markuu tagay nin baa soo dhaweeyay la oran jiray عبد الرحمن ابن السويلم nin la oran jiray baa soo dhaweeyay markuu soo dhaweeyay marka xodxodasho galay oo inuu meeshii dad ka tabco ayuu ku tala galay wuxuu helay marka laba wiil oo ninka meesha xukuma qariyada xukuma oo la yiraahdo Maxamed bin Saud laba wiil oo la dhalatay buu helay mid waxa la oran jiray Finyan bin Saud midna waxa la oran jiray Mushar bin Saud labadaas nin ayuu helay labadoodiiba wuxuu sheegay oo xoogaa oo wax isiraadeen waaba nin xoogaa roon waxay isku dayeen in ay la kulansiiyaan ninka meesha haysta degmada yarta oo walaalkood ah waqtiga isaga marka waxa jiray dawladii Uthmaniyada oo saldhigeeda Turkiga ayaa waxa ku socday dagaal ba'an oo dibadda laga soo qaaday hujuum kala duwan iyo weerar kala duwan oo Yurubiyaanku ay ku hayeen oo aad u dhib badan dagaalkaas oo in dheer ba socday ujeedadiisuna ay ahayd in la abuuro khilaaf islaamka dhexdiisa in lagu abuuro si gaaladu uga adkaadaan islaamka arintaasi suuragal ay noqon weysay in badan bay gaaladu isku dayday muxaawalo badan bay samaysay waxba waa u socon waayeen waxay marka abuureen waxa la yiraahdo qowmiya carabiya inay sameeyaan oo yiraahdaan Turkiga xoog idinku haysta de waa taariikh la yaqaan oo weyn meel walba ku qoran ee Turkiga ka xorooba waxa la yiraahdaa inay sameeyaan ku talagalay arinta ayada marka dhowr goor bay waxay isku dayeen inay dadku dhex abuuraan islaamka niman waxay sameeyeen leeyahay mustashriqiin oo ninka waa la keenayaa Yurba laga keenayaa diinta islaamka la barayaa af carabiga la barayaa mashaayikhda loo geynaya halkaas inuu wax ka fidnayo daraadiis marka inta badan ba islaamku way ogaanayaan oo dadkaas ninkii masaajidku kugula jira walibana waa gaal weey oo waa fataan la sameeyay gacan ku sameeyay
waxay isku dayeen niman ahaa maamulka ahaa dawladda Cuthmaaniyiinta oo iyagu gobolada joogay qaarkood oo laakiin aan iyagu aqoonta bedelan qabin inay la baxaan nimankaas oo ay yiraahdaan madaxniman idin siinayna ee raaca waxa kamid ahaa nin boqor ahaa oo dhalay Xuseen bin Dalaalki awoow u ahaa hadeertan ka dhiba jiray Urdun awowgiis ahaa oo saddex wiil lahabay u soo dhacay markaas waxay yiraahdeen waxaan rabnaa in aad naraacdo oo aan ku dhiibno jasiiratul arab oo dhan ina gacanta ku galna adiga oo anaga aad naraacdo nimanka atraagtana la jabiso ninka xoogaa arintii u dhagjabiyay dagaalkii dheeraa ka bacdi waxay ninkii ku sameeyeen gaalada waafataaniini way qaadeen asaga dhamaan ingiriiska jasiirad ku taala inta geeyeen guri dheer uga dhiseen bay yiraahdeen jasiiradaas afadhinaysa ku dhimanaysa weligaa dambana carab ku laabamaysa laakiin waxaan kuuga abaal gudaynaa inaan saddexdaada wiil madax kaaga dhigna yiraahdeen wiil waxaan u dhiibaynaa yiraahdeen Sham Suuriya iyo Lebanon iyo Falastiin dhulkaas u dhiibaynaa ninna waxaan u dhiibaynaa Urdun ninna waxaan u dhiibaynaa Ciraaq saddexaas u kala dhiibeen marka saasay khiyaanada u wadeen marka taas ka horeysa ayaga ragga ayaga ay marka rag wax walba laga dhamaysan kara maahan inkastoo madaxnimada la jecel yahay arrintaas oo marka jirta oo dagaal ku socdo ee dawladda Cuthmaaniyadda ayaa ninkan odagahay meesha tagay waxay marka nimankaani u xaawilayaan in ninkan la kulmo madaxnimo in la helo la go'o ay rabaan ayagu oo laga ay laga goosto dawladda islaamka ee Turkiga madaxda ka yahay in cadow la abuuro gudaha Soomaa waxa marka ninkan loo adeegsanayaa in islaamka lagu jabiyo baa loo adeegsanaya ninkii waa ka gows adayga marka inuu arintii aqbalo si degdeg ku aqbalo waa ka gows adeygay waxay sameeyeen labadii nin markii uu ninkii diiday arintii oo yiri arintaani iga daaya waxay ka soo galeen xaaskii xaqiis dadka madaxda ay xoogaa xasaska way u jilacsan baan u malaynay islaantii baa loo keenay ninkii odaga ahaa oo la yiri bal ninkan arag isaga waxa ka shaqeynaya islaanta la ii keen hadda adigu diido mabda ay wataan ilmaha naga aadan Soomaa wargi waxa inuu afka iska ka shaabo ka bartay la yiri Soomaa waa sidii islaantii baa la soo waxayo waxa la yiri ninkan dawladnimada duur rabo wadaadkan ha qaabila leey islaay waxa qorar la yaqaan way waxana iska leena lagu maar arintii marka islaantii waa u timid ninkii waa dhageysatay arintiisay aragtay ninkii odaga ahay bay u tagtay marka waxay tiri warniyo ninka anigu aan soo arkay ninkii kugu habboonaa dadayeysa way waana qaniimay tiri ninkan ee ka qaniimaysay oo fursadaas yeesa ku dhaafin bay tiri illa ina aragtaa ninkaas oo la kulanta ninkii hadde warkii markii lagu calcaliyay xoogaa waa iska dabcay wuxuu yiri ninkii hala ii keeno soo madax raadis buu ahaayo qariyada yarta aabihiis uu ka dhaxlay oo aabihiis baa meesha madax ka sii ahaan jiray marka islaanta magaceeda waxa la oran jiray Mawda binti Abi Wahdaan baa la dhigi jiray magaceeda waxay gaartay inay labadooda isu keento ay wada hadlaan markii ay isku yimaadeen ayuu soo dhaweeyay Maxamed bin Saud ninka la yiraahdaa Maxamed Abdul Wahhab soo dhaweeyay wuxuu yiri ku bishaarayso Maxamed Abdul Wahhab magaalooyin ka khayr badan adiga magaalooyinkaagii ku bishaarayso wiri cizi badan iyo manco difaac adag oo ila ninkan waa nin intaas adduunka islaamka oo dhan ka soo cararay oo fakada inaan ku difaaco aan waxba ku gaarin ku bishaarayso hadda taas iyo ogolaato yiri adna cizi ku bishaarayso yiri iyo inaad marka dambe carrada aad qabsato yiri oo aad tamkiin hesho sidaas markay yiraahdeen ayaa heshiis marka la galay heshiis baa la kala qortay heshiiska asaga saddex qodob baa ugu muhiimsanayd wuxuu marka ka bilaabay Maxamed Abdul Wahhab qodobka koobaad Maxamed Abdul Wahhab baa bilaabay waxaan dadka ugu yeeraynaa tawxiidka nabigana wuxuu sheegay ardadaas inay tahay ardo islaam oo tawxiidku ka hirgalay ardo gaalana inaysan noqonaynin nabigaas sheegay marka dadka uu tawxiidka ugu yeeraya gaaladii ma ahee waa dadka islaamka ay halka degan weeyaan oo muslimiinta ah dadkaas way dadku leeyahay tawxiidka ugu yeerayna waxaan dadka faraynaa buu yiri macruufka
waxaan ka reebaynaa buu yidhi munkarka wuxuu yidhi kalimatu xaq yuraadu biha albaatil buu yidhi waa kelima xaq oo baatil looga jeedo micnaha wuxuu u jeedaa wixii annagu aanu aragno macruuf saa arki doontaan waxaan annagu macruuf u aragno ciddii u qaadanaysaan u sheegaynaa ciddii ka soo hor jeesatana munkaraan u arkaynaa buu leeyahy oo waan dilaynaa kan kale wuxuu yidhi ciddii annagana khilaafta oo halkee u socotaan iyo mabdi'iinu muxuu yahay iyo maxaad damacsan tihiinna tiraahda waa dilaynaa buu ayadan dilka haddaad arkayso qof walba la dilhaya halkaasuu ka socda wuxuu yidhi saddexdaba waan ogolah laakiin 2 shardi baan dhiganayaa buu maxamed bin sacuud baa dhahay haddii wuxuu yidhi hadda aan dagaal gallo eed baan gelayaa leanno dawladda dhan oo xoog loo caalam meesha dhulka dhan haysata ayaan la dagaalamayaa buu marka haddii wuxuu yidhi aan dagaal kaa galo inaadan iiga baxaynin oo aadan qolo kale iga dooranaynin oo aadan iiga haraynin hawshaan aan ku ballannay shardi weeyuu shardigaas waan kaa rabaa buu shardiga labaad waxa weeyuu yidhi dhulkan aan joogo aniga markii beeruhu bislaadaan waxaan ka qaataa buu yidhi xoogaa dhaqaale ah ayaan ku qabaa oon ku leeyahay buu xoogaagaas inaadan iga goynaynin oo aadan lahayn xoogaagaas kuu socon maayana waan kaa rabaa buu wuxuu yidhi niyahow midda hore horta waa kaa aqbalay yidhi gacanta isii buu yidhi waan kugula heshiinayaa waa kugula mubaayacoonaya midda labaad waxaabaa ilaahay mudan yahay buu yidhi inaad dagaalada iyo jihaadka aad gelayso aad ku adkaatood qaalib noqotuu yidhi oo aad hesho qaniimo fara badan dadka la qaniimaysanaya waa taqaaniin waa dadka muslimiinta ah dhulka degan wey halkaas ayaa markaa lagu heshiiyey oo heshiiskii ku dhammaaday heshiiskii markuu dhammaaday maxamed cabdiwahaab wuxuu xoogaa markaa daniyey inuu yacni leeyahay nin xoogaa isaga waardiyeeya 2 shay buu bilaabay marka tallaabta koobaad inuu bilaabo warqada inuu u qoro culamaa udiinkii iyo qudaadii iyo hogaamiyeyaashii diinta oo dhan inuu warqada u qoro uu ku dalbanayo inay isaga raacaan oo macnaha uu tawxiid ugu yeerayo iyo inuu diyaarsado heshiisyo shisheeye oo dadka Yurubta soo duulaysa naftiisa oo xiriir gacan saar la yeesho inuu gacan saar la yeesho gaalan cabnahay wax jira ma dad artan gaalan cabdi yiraahdaan dinka odaga naftiisuna maxamed bin sacuud kuna sidoo kale wuxuu rabaa inuu gaalada xiriir la yeesho labadaba waxa loo abaabulayaa in dawladda islaamka la rido saasi u abaabulan dadkii culimada ahaa markii loo geeyay ninkii warqadiisii way la yaabeen aad bay u tacajubeen gobolkoodu waxay yiraahdeen ninkan waa jaahil nin meeshu ku dhashay la yaqaano oo inta magaalo oo ka qaxay la yaqaano oo inta meelood ku fashalmay la yaqaano oo da'diisa la yaqaano inuu annaga noogu yeero tawxiid hadeer oo yiraahdaan tawxiid baa idin kugu yeeraya waa arrin khatar ah yiraahdeen waa jaahilnimo bacdigood waxay yiraahdeen maahana waa saaxir wuxuu rabaa idiciisaas iyo sixir inuu carada ku qabsado ninkan bacdigood waxay yiraahdeen ma ahan ninkaani waa mulxid bay yiraahdeen oo nin diin haystaba ma ahan wuxuu rabaa inuu diinta dabagediyo bacdigood waxay yiraahdeen maya waa khaariji ninkan waa khawaarijtii oo kale dadku gaalnimo ku xukumaya oo in ayaga maan inta kale gaala yihiin bay qabeen asla sidoo kale qabaa yiraahdeen jawaabo kala duwan ba marka culimadu uga jawaabeen iskuna mid ah markii la soo xooriyay arrintaas ayada marka ay dhacday waxa weeye taariikhdu markay ahayd markii yacni heshiisku dhacay weeye oo hadda aan soo maraynay oo heshiiska dirciya uu dhacay oo asaga iyo maxamed bin sacuud ay heshiiyeen marka arrintaasi dhacayso arrinta ayada marka waxaa qoraya kitaabkii ayagoo ay qorteen oo aan soo sheegnay oo ah Unwaanul Majdi kitaabka naftiisa ayaa qoraya wuxuu ka qorayaa juska koobaad safxada 14 buu ka qorayaa arrinta ayada hadda aan sheegayno culumadii markay jawaabta u soo celiyeen wuxuu qalqaaliyay marka dagaal in lagu qaado ilaa awal buurada waa dagaalamaynaa weerar hal lagu qaado marka waqtiga naftiisa waxay diyaariyeen ciidankaas oo ay ku dagaal galayaan oo watay 7 gaadiid ah
أي أبابولين waxay dagaal ku qaadeen dadkii reer baadiyaha ahaa isla buugaas naftiisa ciwaanul majdi naftiisa qoraya wuxuu ku qorayaa isla buuga hadda aan sheegnay oo ah 14 taariikhdu waxay ahayd markaas 1159 kiibay ahayd horta dagaalka ay bilaabayaan dagaal bay bilaabeen dagaalkaas waa lagu jabiyay dagaalo fara badan bay isku dayeen waa lagu jabiyay markii ugu dambeysay si toos ah looga adkaaday waxay galeen Kuwait ay ku carareen ayaga iyo nimanka hadda jooga meesha iyo Kuwaitiyiintu oo hadda mamlakada hadda joogto oo bidcada ah iyo Kuwaitiyiintu waa isku asal xagga asalka marka la yiraahdo marka barigaas iyagu ay fakadeen xagga Kuwait u fakadeen Kuwaitiyiintu barigii shariifkii ka dul dhacay la oran jiray Saddam Hussein ayay ku carareen waa marka waxa ka dhaxay waligood qaabkaas ka dhaxay jiray arinta dagaalkaas uu socday ilaa markii dambe soo noqnoqonayeen weerar farab adag ay ku qaadaan nimanka wahabiyada oo fikrigaas kulligood waxay aaminsanayeen fikriga asaga hadda aan sheegaynay wuxuu ka dhigay inuu gabar siiyo inuu gabar ka guursado maxaa abduwaab dhamaantood haddana kulli xaro ka dhigtay waxba wada sheegay dhamaantood marka xagga fikriga isku mid bay ka noqdeen fikriga ka midoobeen waxay kale oo ka midoobeen sida arki doonno qaybsiga maamulka way ka midoobeen wuxuu alla wixii diin ah ada laaga dambaynayaa wuxuu yiri boqortooyo iyo madaxnimaan boqortooyaan rabaaya ana la iga dambaynayaa hatta fikrigaas ku jiray waqtiyadii dambe fikrigii ay maarad waxyaabihii dambe oo heshiiska dambe ay ku gaareen sida arki doonno insha Allah ta'ala waxay weerar ku qaadeen marka magaalada Riyaad aad u adag oo ay fooda gelin waayeen muddo dheer waxay qabsadeen 27 sano ka bacdi ayay qabsadeen marka magaalada Riyaad ay gacanta ku dhigeen waxay ahayd 1187 ayay ahayd waqtiga isaga ay qabteen magaalada buuga hadda kitaabka aan soo sheegnay naftiisa ayaa asna qoraya arinta ayada ah wuxuu yiri waxa cararay raggii iyo haweenkii wax alla waxa meeshii joogay markii weerarka la soo galiyay waa kala carareen buu yiri dadkii waxay meeshii kaga tageen maalkoodii oo dhan iyo guryahoodii oo banaan ilaa meel cal soo galay waa la yaqaanay halkaas ayaa lagu qaniimaystay buu wax alla wixii yaalay magaalada Riyaad waxa kamid ahay buu yiri sheekha Abduwaab deyn baa lagu lahaay buu yiri 40,000 oo lacagta markaas Najd laga isticmaali jiray ayaa lagu lahaay buu sheekhu deyntii buu iskaga bixiyay buu yiri xoolihii meeshaas laga qaniimaystay saas u qoraya boog naftiisa qoray waxaan anagu abuurayna ma aha halla yaabin marka haddii xoolaha inta lagaala taga laga dhaco lugira waa qanimo halla yaabin waxa weeye asla ciwaan majdiga naftiisa rubuciisa koobaad weeye waa safxada 15 ka fiiriya di ilaahay yiraahdo saas u qoraya ninba waxa la yiri hadar xamar waxba kugula soo dhaca la yiri mararka qaar nin taxi haysto oo meel la joogo uu yimid Sinai markaas wuxuu yiri niyow taxi iga kiriiso ninku waxa wataa jaakatiin iyo koor iyo tay iyo waxba u xiran كده وانين كان أصدقائي وحو يسيري وذات كان حقا بات كهلي سامانته وخير قبال لك سوى وافجيه ويسيريه سوى قلبي مدينة يجيب مدينة وجاي يقصوا عليه كاران يجيب رواق جاي حقا يجي مركو أفر ميلود جايو نينكي وريري ورودي وانكو قد دالي أفر ميلود بانكولات تجي ما أنت نبقى وريتشينا يسي مركينا إلا بعدين هشينو أنت أصلا كسينا يا مادة هنا نيو لحقت يسي العاق يسيبوير مركو سايري وانت اسكت جوي قالوا سيدي اسكت بحي بوحو تصيب بس وركبيه جيبيس بلا يكون ركبا إلا ساكت شنن كل رادين هيبير أذوقنا السنود بضرب تابي وحياهم بركة هذا على الأركيسان والبلاية تقدمه وياه بلد هالكاسة كسقطة تذكر هذا على الأركيسان نقله أيجو الدين وحكي كمان وحال ليري أري وحو أرك أرجع وين ليه مثال كلا أسقم بلها أيجو وحي أركان نمن كان أن هذا يولد تذكر وعشان تذكر جلينا هنا ماشى كو أركان ما هني أبتدي السؤال هالكاء هاي دين كود محوي هاي ما هي آمن سينهن إيه هالكاء كي مادين إيه إنكم محان هاي منا ماله وحاد ويا بدن وي مركا وواحد عجيب مركا صفحة هالكاء سوق قرية أرنت مركا أركا يسيد وأرن أبترس الله ماله كتب الله يقانا ويان وفي النهار هذا الصومالي يتعلم أبترس إلى يكتب هالكاء مركي اللي شجع مقالة ريال قبصدي أو نيكي أضاع دينتي حوالي ضدك إسكاب الحياة مؤمنين تا
وحور أنا ومرضا بالسياسة قال ما هي حكم وعن ربع إن شيخ نويد الله يأغنسون الدولة الشيخ النقضة أظن النية وهوش هذا السي وضوير برنامج كمركز دليل كي سمحوية هاي وبرنامج كي أي دجيين من كي علمانيين تاها ولا أورنجري فصل الدين عن الدولة دين كي الدولة ده إلا كلا صاعة برنامج كمان الشيخ النوشي شريف النوشي ما لله وما لقيصر ملك يرادين وين وحي إلهي هاللوداي معناها وحي الدين بس يكته هكو أكاد المساجد إيو ما لها سجوجين وحكم كيس الطابن وحي بقر كقيصر وسكلي أنا قيصر هذا أصلا معمول كيدتك هم معمول يراد مركز واسل فكري نفتيسي هل كاس أيام مركز حشيش كشيء إنه ضمبوي وحلقو جاري قال اللي يراد على الشيخ أو أيقول لو يديو وحي الدن لقال لي حق الدين iyo qolar boqortooyo ah oo hadii wax alla waxay rabaan hadii falkiyaan aan lagu tagayn qola igu sheekeynaysa ma ayaan dhaxay islaam boqorada wuxuu yiri oo anoo shaqo doonta Sacuudiga jooga islaam boqorada u tagay yiri amiirad oo joogta guri bay leedahay buu marka afarteeda waaxood midba qof baa dhaqdo yiri afarteed qof baa ku qoran buu yiri midba guriga marka wuxuu yiri khamradu meesha salka laga bilaabo ilaa madaxa ugu sareeya ay tiirsanta مسخوشنا أفر قفودا جلسوا مركا يجلسوا أو نمان أبدا أرنت النوع عاصي ماها وح هل قفة كلية كوك ووح ننكا أصدت كي صار ضمن أي كتر سيئين كل وذا يعني أي استعمالهم ولقوا يقانو ساس بسمي سيئين مركا يريد أنو كشغير معي ماشي أنا رضاي قتك هواري دي كل داعي وكت جيبي ورلعك أنت عرفت قاعدة لير ما قاعدنا يا ريو رجعت بلدان واد مغلي سنة دكي قدام بيجي مركا لقى تاريخين يد كل دجواد ليدهن marka kulli waa dabeecad jirta saasa lagu qaybiyay hadii marka xataa nimankan ayaga la siiyay qaybta diinta ay yihiin niman diin u danqanaya waxay u danqan lahaayeen wax nimanka sameynaya xayir diinta islaamku ma qabto inta xooga yarna hal la qabto inta xooga badanna hal laga leexdo diinta islaamku ma qabto shariicada islaamku dadku waa u sinay ma aha marka micnaheedu in yaani nimankan ay diin dabaqayaan markuu leeyahay diinka la iidaayo macnaheedu ma aha waa inuu madaxnimo helo waxay weerar ku qaadeen haddana magaalada Karbala ay weerar ku qaadeen Karbala magaalada la yiraahdo waxay weerarka ku qaadeen 1216 markii taariikhdu ahayd isla buugaas naftiisa ayaa qoraya waxay yiraahdeen waxaan ka qaniimeysanay bay yiraahdeen markay arinta ka sheekeynayeen xoolo aad u fara badan oo dahab iyo fiddo labadaba ku jiraan bay yiraahdeen waxaan ka qaniimeysanay dhaheen goglihii masaajidda ayaa qaniimeysanay yiraahdeen wasaas ayaga qortay waxaan qaadanay yiraahdeen مصاحفتي iyo kutubtii ma qanimaysanay yiraan masxaf yaa laga qanimaystaa idinkan idin sheegay yaa masaajid gadayo nin masaajid gadi kara ma jira cid laga qanimaysanayo ilaahay ahayn waay oo masxaf yaa laga qanimaysanayo maxaa masaajid waa ficilkii dhacay marka ayada weeye ayadana waad gooban karaysaano isla meeshaas ka helaysaan oo waa qoran tahay isla kitaabkaas naftiisa ayaa qoraya waxay hadana ku soo noqdeen dhinacaas Makka magaalada Makka maxay yeelay waxay magaalo istiraatiiji oo diinta islaamka dhumucdeedii iyo salkeedii inay marka ayada qabsadaan maana iskuma aaminayaan inay maamulkooda waasiciyaan ayaday marka weerar ku qaadeen 1218 bay qabteen ayadana magaalada Madiina ayadana way ku duuleen waxay qabteen 1220 aad iyo aad baa dhibaato aad u fool xuma ka dhacday oo caawa gobolkeed inaan sheegno aan ka xishoonayno xaqiiqad meesha wixii ka dhacay waa meesha la soo saaray gabdhihii waligood aan banaanka loo soo saari jiray banaanka loo soo saaray maalinta ayada wax alla wixii la arkana la boobay oo xurumaadka ahaa oo aan la ogolayn macnaha xurmada lahayn oo la ogolayn in la boobo arinta marka ayada ah horta bilowgeedii sidaas ay ahayd waxay soo martay waqtiyaal kala duwan bay soo martay oo مثلا haddaan ka soo qaado waqtigaas ay heshiiyeen maxamed Abdi Wahab iyo Maxamed bin Saud waqtiga ay heshiiyeen ilaa dagaaladaas waqtiga ay dhacayaan marxalad bay ahayd waliba dagaalada intooda aan wali la soo gaarin oo la qabsan magaalada la yiraahdo maxaa Riyaad ahsa iyo waqtiga qabsanayaan oo hore marxaladna waa marxaladii dhaxo oo ayaga iskhilaafay marka dagaalo xun baa dhexdooda ka dhacay oo dib dhac badan ku sameeyay oo iyaga naftooda ninba nin riixayo usray ahay laakiin usrada isla riixaysay waxa jirta marka marxalad dambe
وأن أركض دونها دي إلى يرادو أي صامرين رجع أيجا أمرته واحد وجوه الرئي مركل إلى أساس كودا ونمن كان هذا بقرطيدا نقنية نيل أورنجري سعود بن محمد بن مغرن نيل ديجري وأنك علي محمد بن سعود نينك عليوي نينك سووه وقعد ننتي وش قيني مركا دولة دي هراء عثمانيين تيولا شقيني وحكم كي وقعد تجي محمد بن سعود وأنك محمد عبد الوهاب له شيء نياه أيو حكم كي كنا في محمد بن سعود بقى مركا معارض كنا قضي دولة دي حكم كأيدا هيسي أو دولة الإسلام أو تركيا اللي وقعد تليني وكان دجال كلا جلو هذا أنشيجيني waxaa markaa ku xigay nin la oran jiray Cabdulaziz bin Mohammed bin Saud oo Cabdulaziz al-awwal ayaa la yiraahdaa Cabdulaziz kii hore ayaa lagu magacaabaa ninkaas ayaa ku xigay maamul ahaan ninka ugu dagaal badnaa marka isaga uu ahaa oo dagaalada badan fuliyay oo aad u dhibka badnaa waxaa ku xigay Cabdulaziz kaas Saud bin Abdulaziz bin Mohammed bin Saud in la yiraahdo oo asagu uu dhalay Cabdulaziz kaas waxa ku xigay Abdullah bin Saud bin Abdulaziz oo ninka odaga awowo u ahaa waxa ku xigay Mushari bin Saud al-awwal in la yiraahdo waxa ku xigay Turki bin Abdullah bin Mohammed bin Saud waxa ku xigay Faisal al-awwal in la yiraahdo waxa ku xigay Khalid bin Saud bin Abdulaziz bin Mohammed bin Saud وإسلا فرعي هذا كشكيني أصلا وعكوحي عبد الله الثاني من الليلة وعلي عبد الله بن ثيان بن إبراهيم بن ثيان بن سعود الليلة سجن وعكوحي فيصل بن تركي من الليلة بن عبد الله بن محمد بن سعود وعكوحي عبد الله بن فيصل الأول وعكوحي سعود بن فيصل الأول وعكوحي عبد الرحمن بن فيصل الأول نقاس عكوحي أصلا عبد الرحمن كاس أيها وحود على إن منك هاد الجوجة أبهد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود انتاس أي يسوع ضافين وعمرك انت بدن قبطي ذلك وحوها عبد العزيز كي هراء أيوة هذا أنك شيكيني ninka markuu dhulka badankiisa qabtay asagu laba shay mid kuma guuleysan oo istiqraar taam ah muusan ku guuleysan laakiin heshiisyadii gaalada ku guuleystay iyo in jajabintii muxuu ahaa dawladii la jajabiyo la burburiyo islaamka ahayd fikradaas ay ka wada shaqeynayeen Maxamed Abdi Wahab waqtiga dambe oo ninkan uu Cabdulaziz kan hadda yaani ragiisa joogaan uu yimid ayaa waxa la sameeyay aad waxa u faafay markaas ayaga xukunkoodii oo dhulka Saudi Arabia la yiraahdo dhan baa lagu faafiyay magacii baa laga bedelay dhulka magaciisu ma uusan ahayn Saudi Arabia ma ahayn Hijaz magaca la yiraahdo iska lahaa marka way bedeleno ayaga marka bedelay magaca isaga ah oo waxay u bedeleen Saudi Arabia magacaasi u bixiyeen mamlakatul arabiyyah as-saudiyya u bixiyeen marka ayada ah oo ay sidaa yeeleen arintu noqotay waxa ku tartamay Ingiriiska iyo Faransiiska oo isreeb dheer u ka dhaxeeyay markii dambe looga guuleystay Faransiiska looga guuleystay oo nin walba ku tartamayay in meeshan istiraatiijiga uu qabsado Ingiriiska iyo Faransiiska laano badan la yiraahdo Bahrul Mutawassit oo taqaaniin oo Yurub iyo kala teeda kala xirta Carabta u dhaxaysa laba marin bay lahayd labada marin mid kamidii wuxuu ahaa marinkaas Carabta ay joogan midka kalena wuxuu ahaa badan Mediterranean-ka iyo badan meesha iskaga dhacaan Indian Ocean marka nin walba wuxuu raadinayay inuu dhulkan qabsado sida daraadeeda Faransiisku wuxuu soo hujuumay dhowr goor dalka Masar ninkii Napoleon la oran jiray oo generaalka shaydaanka ahaa ayaa dhowr goor ku tala galay inuu qabsado waa u suurtaabi weyso hada rag baa joogay waa gaashaanka loo daruuray waxyaabo badan buu marka ku xodxodanayo carabnimadaas ku xodxodanayo wuxuu rabay inuu ka saaro sidaan soo sheegnay inuu ka fujiyo dawladdaas islaamka inuu furfuru rabo marka arintaas marka waxa dagaal ka dhaxay loolan ka dhaxay Ingiriiska iyo Faransiiska markii dambe marka Ingiriiska arinta ay xaqiisa u badato ragga markii heshiiska la galay labada nin oo hadda aan ka soo sheekaynay
iyo ragga ka dambeeyo ilaa Cabdicasiis ka laga yimaado waa Ingiriiska way wax la wadaan gorgortanka markii dhulka uu qabsaday Cabdicasiis ayuu wuxuu yiri shidaal in la isoo saaran rabaa Ingiriisku ku yiri waxay dabaan Ingiriisku nimankii meesha xoreystay way islaamkii ka baabi'iyay inay xoogaa inuu u yareeyo qiimaha ka dhimo xoogaa uu ku adkaaday marka Mareykankaas si lama filaan u soo galay maalintaas uu saxiixay marka Mareykanka 1904 bay ahayd bacdigood yiraahdaan bacdigood 1930 iyo 3 bay ahayd ragga dambaana raajix 1930 iyo 3 bay ahayd iyo 32 oo miilaadiyada ka bacdi dagaalkii labaad adduunka ba dhacay oo arrinta baa isku farxalatay oo waati labada loo kala go'ay markaas ka soo marka taa aan ka soo noqono ninka marka isaga ah oo Cabdicasiis bin Abdurrahmaan ah heshiisyadii dhan oo gaalada ayuu la galay waxa ka mid ah heshiisyada oo la galay inay iyaga difaacaan hadii isaga laga itaal roonaado inuusan u diideyn meel alla meesha ay galayaan ay madax banaan yihiin heshiisyo badan baa jiray oo uu la galo la qortay markii isagu uu tagay oo xukunkii ka wareegay wiilkiisii baa kala wareegay Sacuud ahaa Sacuud asagana waxa kala wareegay Faisal bin Abdul Aziz oo adinku waa ragga qaarkii soo gaareen Soomaaliya yimid asaguba waxa asna kala sii wareegay Khalid oo 2 sano haystay xukunka waxa kala sii wareegay Fahadkii hadda dhimanayay waxa kala wareegay Abdullah hadda jooga Abdullah ku dhawaaqay marka intii uu noolaa Fahad in uu buray heshiiskii darciya inuu buray Abdullah sheegay idaacadahu ka sheegay telefishinadu ka sii daayay waa caday warka waa sheegay Ingiriiskuna Tony Blair baa ku dhawaaqay isla waqtiga agtiisa wuxuu yiri inaga sameeynay inagana la dirirayaan saadalada wala iska dhaciyaan sidaas ugu dhawaaqay taariikhad ogtiin way la wada yaqaan wax qarsoon ma inaga sameeynay inagana la dirirayaan Tony Blair sheegay waxa la yiri siri shaqshaq bay ku soo baxdaa moogta labadii waxa la yiri ku heshiisa xaq darro xaqay ku diriraan leh markii hore diinta loo heshiiyay marka saas hadda dagaal ku soo bax arinta marka iyada ah waa arin la yaqaano maraaxisha ay soo martayna sidaas ay u samaysan tahay waxaan ka baqnay hadaan maraaxishaas iyada ah aan faahfaahin ku sii sameeyno laba shayba inay dhacdo waqtigu naga dhamaado labaadna waxa weeye inta ay jireen baa ka muhiim amooye muhiim gaar ma aha nimanka nin walba intuu hadda xukunka haysta way qoran tahay inaad yani la idinku dul aqriyo wax faa'iido ma idin keenayso laakiin inaad ogaataan intay noolaayeen iyo meesha nooga yimaadeen waxa jira marka midalan nimankan markii uu ninku dhulka qabsaday aan sheegnay loo soo saaray shidaalkii odaygii waxa la yiri boqolkiiba 2 ku leedahay la yiri shidaalka boqolkiiba 2 ku leedahay la yiri shirkadii Mareykanka ay yiri sidaas oo raalli ku noqday Cabdicasiis wuxuu ka badi waayay marka asagu inuu isku dhiso oo dad oo ku dhiso ciidamo ku sameeysto waxa ku soo xigay Sacuud sidii ku socotay way diideen inay ka tanaasulaan waxa ku soo xiga Faisal baa shirkadii Mareykanka u yaaray wuxuu yiri waa naga guureysaan ceeshana waa la aasaya annaguna markii horeba geelana waa dhaqa jirnaa abees lugoleydana waa cuni jirnaa iyada cunaynaa shirkadii hal marba isla qayliyeen arintii dacwad dheer bay tagtay markii dambe asaga loo daayay wuxuu yiri idinku inta yar idinku qaato yiri annagana dhulka iyo shidaalka annaga leh inta badan baan leenahay noo daayo annagana hana dhicinine ninkaas horta loo ogolaaday maalintii ninka loo ogolaaday nimankan faafid bilaabeen ka hor ma faafin meesha ay ka soo baxeen qariyada ay ka soo baxeen ma aysan dhaafin iyo meesha xoogga ku qabsadeen dhulkaas la yiraahdo Xijaaz iyo Najdi xagga mid oo ma dhaafin marka ka hor ninka markii ay maxay loodaga ninkan wuxuu tixgelinayaa heshiiskii hore marka waqtigii Faisal markii la soo gaaray marka bilaabeen inay dunida kala aadaan oo lacag la siiyo waxay ku socdeen waxa la sameeyay dawlad kasta ee muslim ah si ay dawladda yani Sacuudigu maadaama ay meel istiraatiiji deganto xaramaynkii degan tahay si ay meel walba nasiib ugu yeelato oo ay dad ugu yeelato meel walbaba waxay gaareen dad baa la keenaya dawladda loo tagay dad keensadaa la leeyahay dadkaas fikriga lagu abuuraya fikriga markii lagu abuuro mushaarna waa la qoraya lacagna waa loo dhiibaya waxa leeyahay dawladdaas taga fikrigana faafiya lacagtana ku faafiya waa sida kaniisad oo kale kaniisadu hadii lacag haysan waxa waaye waa burburaysa Soomaa
فاتيكانك يا مصروفة والدولة سوما فاتيكانك مدحوين ولا يهاي رئيس الوزراء ولا يهاي وزير ولا يهاي طلياني وكل حي الله ودولة طلياني دولة كوها صنع يا مشاركة سيا عالم كاس يوروب يا أمريكا أردن يا حتى قدر إن يا بالك يوروب تبرع حتى روش يا قدر كل جزء أيام مصروفة بيل إليه الله سيو كوا واسطة كلا هدي أن سيد الله إنه العقل قال دب أردين وحنا على المايا سيد دراد عد الله عدي أتم هذا أيجا وبيع له ضيوه مركي كوي كليهن وحنا نسكت فاديك حتى لو هذا كنا قاضو أما كون كان قاضو بالك اللي يرادو دين تان إسكبدل مركي ساسا ضدك لو ضيا ما ضدك يجي وحنا الدين هاي حنا الدين ولا ولا قرنيه العقل لو هر ولا مركاسي باللعبة العقل لو هر قاضي أيجا مركاسي باللعبتي أو أقبض نيد معناه أرنت مركا مبادئ دي مركا وي قرين ممكن نقول بابا أنت أو كجاري كري أيوه اسكت ده إنه مبدأ يسي قرة waxa ugu horeeyay duqaas la yiraahdo maxamed abdi wahaab ayaa ugu horeeyay kitaab la yiraahdo kashf shubahaad oo asagu uu leeyahay safxada 14 ayuu wuxuu yiri asagoo hadlaya wal aami min al muwahhidin yaglib al alf min ulama'i haula al mushrikin ilaahay baa idinku dhaariyay kelimadaas bal arka waa ka buuga intaan la egway duqida ma yaa ka tagay wuxuu yiri عامبيجا وحوري ضد كان كمده وري موحدين هذول موحدين كيران وافرهم يسوما توحيدك مع عبد الوهاب نينك هايستالي يرا ايغا اكتو marka wuxuu yiri caamiga muwaxidiinta kamida wuxuu ka adag yahay buri oo ka xoog badan yahay kun culimada ah oo mushrikiinta kulaha culimada mushrikiin ah hadinku istisaar wuxuu yiri min ulamaa'i haulaa horta culimada waa sheegay Soomaa hadana waa ku caday wuxuu yiri waa mushrikiin culimada nafteeda بل أذنكم إنا استسارتنا اللي ذكرها علماء مشركين وحلا ياب لواي وحلا إذا قضي الأمر عمي البصر وعيري مالك لا مركو عامي قسوة كيسو سيود وعيري هدين من كوي ماذا إسلامو قنفتيسة هدين وعيري من كوي ماذا أو وعيري من كاسكويرا وحا أتشيغي يساينيه وخلق أو وعيري أدلك هو كانوا أو قرآن كو قدول أخريه أو حديث كالنبي كوشيغو وجوابه وحاتري هذا وعيري وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه دهوير ساسكو يراوي فالهذا الكلام يسلم يدكو داري وحا شيء يسوي هذه شيكتي نيو مشركا او غالكا قال له فدك سارندا هذا ادو وفيرس ويلكا شلا كسو تagtaa waa kuleeyahay gaal hata baad inta ku yimaado gorbu soo iibiye gaalnimada halka ka soo gaday wax la yaab leh sheekh waxaan marka taariikh ileen meel kale u goobinin adinka yaa lagu wareerin maba ku wareereysaan waxa tiraa urniyo mushriga quraanka aad akhrinayso iyo ka nabiga kalaamkiisa aad sheegayso من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه أنا ما أقان له مركز كذا غاش كلها وحير مثل يرى هذا محمد